af waxa uu dabar go'aa marka uu ka baxo adeegsigii dadkiisu ay adeegsanayaan ama la waayo cid adeegsata oo uu yahay af ay ku hadlaan haddii uu afku dabar go'o inta badan dadkii uu haybtiisa sidayna way hayb bedeshaan ama way dabar go'aan madaxaynay saas ay u jiraan iyagoo haybtii afkooda wata waa laga yaabaa afafka qaarkood inay taariikh ahaan ay u badbaadaan iyagoo hadda aanay jirin ummad af ahaan ugu hadasha sida matalan afka laatiinka oo kale maanta ma jirto ummadu u yahay af hooyo uu u yahay laakiin wuxuu ka mid yahay afafka taariikh ahaan badbaaday afaf kale oo waxaa jira fara badan oo intii bini aadamku ay jireen oo dhanba soo socotay inay afafku ay dhintaan kuwaasoo ka baxay xataa inay noqdaan inay taariikh ahaan ay u badbaadaan oo hadda aan la xusi karin afka dabargo'iisu waxaa ka horeeya marxaladahaasi waxaa ka mid ah inuu noqdo af khatar ugu jira inuu dabar go'o afafka khatarta ku jira inay u dabar go'aan dunida maanta aynu ku noolnahay waxaa la yidhahdaa boqolkiiba 50 afafka lagu hadlo waa afafka khatarta ugu jira inay dabar go'aan oo laga yaabo weliba inay waqti aan fogeyn oo dhikaynisa boqolka sanadee soo socda ka yar inay ku dabar go'aan sababta ugu badan ee u dabar go'ayaan waxa weeyaan in afafkaasi dadkii ku hadlayay ee uu af hooyo u ahaa ay tira ahaan soo yaraanayaan ama ay yar yihiinba isticmaalka afkooga ee dhinacyada aqoonta iyo fikirka uu isaguna uu soo yaraanayo waxaa la yidhaahdaa dunida dadka ku nool boqolkiiba 96 ama 96 waxay ku hadlaan keliyata 4% ka mid ah afafka dunida boqolkiiba 4 afafka dunida ka jira ayay inta badan yani 60 iyo 69 96 ayaa ku hadla 4% marka taas waxay muujinaysaa yani tirada afafka qarka u saaran in ay dabar go'aan xajmiga ay leeyihiin af Soomaaligu taariikh ahaan waa af mug weyn sida isirka Soomaalida looguma murmo isaga isirkiisa waxaynu ka warhaynaa in badan in doodo fara badan oo qaarkood ay iska dooda dhaqameed yihiin lagaga hadlo isirka Soomaalida ma Carabba ma Cushitic-ba laakiin marka af Soomaaliga laga hadlayo doodahaasi ma jiraan af Soomaaligu wuxuu ka mid yahay afafka la yiraahdo Afro-Asiatic-ga wuxuu sii noqdaa laanta Cushitic-ga la yiraahdo oo uu la wadaago luuqado fara badan oo ay ka mid yihiin Oromada iyo afka Cafariga Saahuuga luuqada ay Biijo ku hadlaan wuxuuna sii raacaa Cushitic-ga la yiraahdo Cushitic-ga bari saas uu Soomaali uga noqdaa marka taariikhda afku soo marayay waa af kumanaan sannadood soo samaysmay laakiin afka muddadaas dheer soo samaysmay ama raadkaa dheer leh waxaynu ognahay muddo 50 sannadood ku siman hadda in qoraalkiisa la hirgeliyey waxay arrintaasi muujinaysaa inuu muddo dheer af Soomaaligu ahaa af ka xidhan ufuqa amaba foofka ilbaxnimada oo qoraalku muhiim u yahay sabab badan baa loo asteyn karaa afafka Cushitic-ga ee bariga Afrika sababtay muddo dheer ay u noqdeen kuwo ufuqaas ilbaxnimo ama qoraal ka xidhan waxaa ka mid ah saamaynta ay Semitic-isku luuqadaha Semitic-ga ah ma garanaysaa Carabiga Amxaariga ay ku leeyihiin afafkaasi waxay la yimaadeen diimaha Kiristaanka iyo Islaamka oo bulshooyinkan in badan oo ka mid ay qaateen marka haddii afku uu values dheeraada uu la yimaado amaba dadku ay qaataan diintaasi afka ay ku qoran tahay waxay keentaa inay inuu afkaasi ka sarreeyo afkii ay lahaayeen marka muddo aad u fara badan ayaa matalan dadka Kiristaanka ee bariga Afrika waxay isticmaalayeen afka Amxaariga hatta luuqadda jicista ee Amxaarigii hore la isticmaali jiray asalkeeda waxay ka soo jeedaa Yemen يعني خط المسند كالورن جريو لقى استعمال جري يمن أي كفر ده وماذا كلا مسلمي لوقد وحبرشة وحاول نقطي أف عربية وعدي وحقريسة
amaba wax baranaysa ee inay wax qorto baranaysa inay luuqadda ay xoogga saarto marka taas waxay keentay in luuqada af Soomaaligu uu ka mid yahay muddo dheer ay ka xidhnaayeen ufuqa ama foofkii in la uriyo in hab qoraal oo lagu kaydiyo loo sameeyo sidaas ay tahay kontonkii sano ugu dambeeyay af Soomaaligu wuxuu sameeyay horumar waxa uu yeeshay far qoran waxa uu noqday luuqad waxbarasho oo heer ay tahayba inkastoo tayadeedu aanay fiicnayn wax lagu barto af uu buugaa ku qoran yahay ay buugaa ku qoran tahay waxa uu noqday af rasmi ah oo dawladda u ah afka rasmiga ee koobaad waana waxyaabaha xoojiya afku in uu horumar uu sameeyo fursadahaas oo jira waxaa jira waxyaabo caqabada ku ah af Soomaaliga oo soo kordhay sababna u ah qayb kamida walaaca laga qabo in af Soomaaliga ay khatar ay soo wajahaan haddii aan kala qaadno inta badan walaacyada laga muujiyo af Soomaaligu way kala duwan yihiin qaarkood inta badan base aqooneed ma laha oo mesela waxa laga yaabaa dadka walaacaas muujinaya inay ka hadlaan ereyo la isticmaali jiray oo dhintay taasi luuqadaha oo dhan waa wax dabiici weeye inuu erey dhintaana kama dhigna inuu af dhimanayo marmarka qaarkood wuxuu noqon karaa horumar uu afku uu samaynayo oo waa sida bulshada iyo xubnaha bulshadu iyada oo kumanaan sano ummadahan u jiri karta qofafkeedu haddana intaa way dhimanayaan laakiin kuwa cusub ayaa bedelaya waxaan u bixinay taas qolof dhacsiga afka oo inay ereyo ay adeegsiga ka baxaan kuwa kalena ay yimaadaan waxay muujinaysaa in ummaddu ujeedooyinka ay u isticmaalaysay qaar ka mid ay ka gudbayso ama ka horumarayso deetana ay kuwa cusub ay curinayso taasi wax dhibaato ah ma laha inta badanna waa waxyaabaha la soo qaado marka walaac laga hadlayo walaacan laga hadlayo waxaa kaloo la soo qaadaa ereyada doolka ah ee afka soo gala kuwaasna labaan u kala qaadi karnaa waxaa jira luuqadaha adduunka oo dhan horta ereyada way kala amaahdaan ma jirto luuqad boqolkiiba boqol biyuur ah ama saafi ah oo ereyadeeda asal ahaan ay ku dhasheen deegaankooda sida badeecadda iyo wax soo saarka xirfadaha la xidhiidha iyo warshadaha loo kala qaato ayaa afafkii ereyadana loo kala qaadan karaa ereyada markaa doolka ahi waxay noqon karaan kuwa markay halkan yimaadaan isdhalan roga amaba shisheeye baxa oo ka mid noqda ereyada dadkaasi ay isticmaalaan oo qof kasta uu fahmi karo inta badanna waxaa dhacda weliba inay qaab dhismeedkiisa wax ka yar bedelaan oo dhawaqiisa ay wax ka dhigaan maalan maanta haddii koob haddaynu isweydiino koob ma Soomaali ba mise waa af kale anigu waxaan qabaa inuu af Soomaali yahay ereyga koob uu sidaas Soomaali ku yahay asalkiisii laakiin xaguu ka yimid wuxuu inooga yimid luqadda Ingiriisiga ayuu inooga yimid luqado fara badan oo kalena wuu uga tegey marka ereygu hadduu shisheeye baxo oo uu luqaddaa ka mid noqdo luqaddaasuu ka mid yahay taariikhda intay afafku jireenna way soo jirtay in ereyada sida loo kala amaahdo ereyada soo galootiga afka khatarta ku ahi waa maxay waa ereyada aan shisheeye bixin waa ereyada iyaga oo luuqadoodii sidoodii u ah oo qofka laga rabo xataa inuu dhawaqiisa u saxo sidii uu asalka uu ku ahaa ereygaasi ay u isticmaalaan dadweynaha marka dhex martana erey caana aanu ahayn oo ay wada garanayaan ereyada aan shisheeye bixin ayaa ah ereyada doolka ah muujinaya inuu afkani uu weeqmayo ay ku soo biireen maxaa yeelay wuxuu ku guul daraystay inuu bedelo inuu deegaameeyo ku guul daraystay